غرباء 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 غرباء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة في الله، الله تبارك وتعالى xikmadiisa xeesha dheer darteed khalqigiisa isku mid kama dhigin. dheeraad buu kala siiyey, wuuna kala fadilay. rabbi wuxuu kala fadilay malaa'igta, oo wuxuu kala fadilay bani aadamka, oo wuxuu kala fadilay bani aadamka kiisa sii fadli badan oo rususha iyo nebiyada ah, oo wuxuu kala fadilay dhulka, wuxuu kala fadilay zamanka iyo wakhtiga. allah tabaaraka wa tacaala khalqigiisa ma simin, isagaa fadliga qaybiyey oo qaar siyaado siiyey. zamanka ilaahay fadilay oo siyaadada siiyey waxaa ka mida maalinta jumcada. waa maalinta ugu fadliga badan maalmaha usbuuca ama toddobaadka. nabigeennana waxaa ka sugan sal alla alay wasalam inuu yidhi, maalin ay qorraxi soo baxdo waxaa ugu fadli badan maalinta jumcada. maalinkaa waa maalinkii aadam la abuuray, siaad la socotaan qur-aankuna tilmaamay. samaawaadka iyo dhulalka iyo inta u dhaxaysa rabbigeen wuxuu ku abuuray 6 beri. 6daa beri jumcada ugu dambaysa. aadam jumcada la abuuray, wuxuu ilaahay abuuray wixii ugu dambeeyey buu ka mid yahay. isla jumcada dhexdeeda maalin jumco ah baa jannada la geliyey. isla jumcada lafteeda jannada laga soo saaray, oo markuu khaladka galay isagii xaaskiisii xawaa oo geedkii cuneen, jannada marka laga soo saarayana maalin jumco bay ahayd oo dhulka loo soo dejinayo. isla maalin jumco baa ilaahay ka tawbad aqbalay, oo markuu khaladka galo ilaahay u laabtay tawbadiisii maalin jumco bay ahayd. maalin jumco buu geeriyooday nabiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam. maalin jumco bay qiyaamadu dhici doontaa, oo adduunkan iyo waxaan isku hagaagsan la gebagabayn doonaa. saas daraaddeed baa nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh, samaawaadka iyo dhulka iyo makhluuqaadka iyo waxa dhulka korkiisa ku socdaayay maalinta jumcadu markay soo gasho way baqaan, markii jinka iyo insiga laga reebo. waxay ka baqayaan in ay tahay maalintii saacadda iyo qiyaamadu dhici lahayd. aadamuhu laakiin waaba moog yahayba, oo badankii maba ogaba, isaga iyo jinkuba. khasaa'is fara badan bay maalinkani leeyahay. khasaa'istiisa waxaa ka mid ah, nebigu wuxuu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, wuxuu yidhi waxaa ku jirta wakhti yar oo addoonkii muslim ah oo ilaahay wax weydiista khayr ah ilaahay uu ka aqbalayo. saacatu lijaaba, saacad rabbi tabaaraka wa tacaala waxaad weydiisatoon xaaraan ahayn, aan macsiyo iyo dembi ahayn, khayr ama mubaaxaadka ah, allah haddaad weydiisato uu ka aqbalay. xadiidka abu hurayra ayaa nebigu wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, maalinka jumcada waxaa ku jira wakhti ama saacad uusan waafaqaynin muslim taagan oo tukanaya allana khayr weydiisanaya ilaa ilaahay waa siinaya. wuxuu yidhi waana wakhti khafiif ah oo yar, wakhti dheer ma aha, waa wakhti yar. saacaddaasina waa ku jirtaa maalinta jumcada. waxay axaadiista nebiga sal alla alay wasalam laga wariyey ku kala beddelan tahay meesha ay kaga jirta saacaddaasi maalinta jumcada. xadiid baa jira muslim soo saaray oo tilmaamaya in ay ku jirto marka imaamku uu mimbarka ku istaago laga bilaabo ilaa salaada la tukado oo laga baxo.
waqtigaasay ku jirtaa xadiis baa tilmaamaya xadiidkaas sixadiisa culimada qaar baa ka hadlayo waa la haystaa axaadiis isaga ka badan baa waxay tilmaamaysaa oo sheegaysaa in ay tahay casarka kadib khaasatan maalinta jumcada saacada ugu dambaysiya waqtiga ugu dambeeya ee qorrax dhaca ku dhow waxa tilmaamaya xadiidka Abu Hurayra markuu xadiidka sheegay oo saacadaasi in la iska aqbalayo cidii Ilaahay wax weydiisata uu tilmaamay ayaa wuxuu yiri waxaan la kulmay saxaabiga la yiraahdo Abdullah ibn Salaam markaasaan u sheegay buu xadiidkii waxaan u sheegay nabigu inuu sheegay saacad jumcada kamida oo ruuxii taagan oo tukanayo muslim ah allana wax weydiista laga aqbalay markaasuu Abdullah ibn Salaam wuxuu yiri aniga waxaan garanayaa saacadaasi meesha ay kaga jirto maalinta jumcada waa teebul wuxuu yiri waa saacada ugu dambaysta maalinta jumcada Abu Hurayra iskaal baa ku dhasho wuxuu yiri seebay ku noqon kartaa saacadaas adigu laba isukay waafaj xadiidka nabigu uu ku sheegay wuxuu sheegay inuu tukanayo ruuxu axaadiis kale oo nabiga ka suganna waxay diidan tahay saacada qorraxdu sii dhacayso ama ay isbedesho in la tukadaba nabigu waa diido waa nahiyay xadiidkanina wuxuu leeyahay ruux taagan oo tukanaya ee saysu waafaqaysaa Abdullah ibn Salaam waa bushi bixiyay oo wuxuu ku yiri soo nabigu ma dhihin sallallahu alayhi wasallam ruuxii fadhiista meel asagoo salaada sugaya salaad buu ku jira soo nabigu ma dhihin haabu de waa taas laazim maaha inuu salaad u taagan yahay ee hadduu intuu meesha fadhiisto salaadii maghribka sugayo salaad buu ku jira Abu Hurayra warkaasi meel la kama marina inuu ogolaaday bay ka muuqata oo ninka la yiraahdo Abdullah ibn Salaam warkiisa inuu aqbalay isla waqtiga waxa kale oo ku soo aroortay xadiidka Anas Tirmidhi baa soo saaray iyo qeyrkii waana xadiid xasan isla waqtiga waxa kale oo ku soo arooray xadiidka Jaabir ibn Abdullah Abu Daawud iyo qeyrkii baa soo saaray waa xadiid saxiix ahadiistu waxay u badan tahay sida Imam Ahmad uu leeyahay Ali rahmatullah waxay u badan tahay inay tahay saacada ugu dambaysa maalinta jumcada saacadaasina waa ku jirtaayo cidii ka faa'iideysanaysa jaanis weyn waay laakiin waa saacad dadka intooda badan ay mashquulsan yihiin khayraadka waa weyn inta badan waxayba ku hagaagaanba xilli ibni aadamku mashquulsan yahay xilligaas cidda intay soo fadhiisato masaajid timaado salaad sugaysa oo ilaahay baryaysaay ma badna jaaniskaasi dad badan waaba moog yihiinba waxa ilaahay aad ka rabto tabaaraka wa tacaala xilliyada iriduhu furan yihiin baa lala raadsadaa maalmaha jumcada waxyaalaha ay goonida la tahay waxa kamida in la badiyo nabiga salligiisa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markuu maalinka fadligiisa tilmaamay iyo khasaa'istiisa ayaa nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam maalinka jumcada dhexdiisa salliga aad igu sallinaysaan badiya maxaa yeelay salligiina aad igu salliyaysaani waa la ii soo bandhigayaa ana la ii keenayaa markaas waxay yidheen rasuul ilaahayow see lagugu soo bandhigayaa adigoo baaliyoobay oo lafahaagii iyo jirkaagii carradu cuntay see lagugu soo bandhigayaa markaas nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam alle wuxuu dhulka u diiday oo ka xarimay inay nabiyada iyo anbiyada iyo rususha inay jirkooda cuno dhulka taa ilaahay waa u diiday tabaaraka wa tacaala marka anbiyada iyo rususha iyo jirkoodii sidii buu baaqi ugu yahay meesha salaadiinana waa la ii soo bandhigaya nabigana salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ahadiis kale waxa kaga sugan hal mar marka nabiga ku sallido sallallahu alayhi wa alihi wa sallam in rabbi kugu sallinayo 10 goor iyo ka badan marka acmaasha waaweyn in la badsado loo baahan yahay kamid maalinkan jumcada waxyaalaha uu khaas ka leeyahay rabbi noo jideeyo waxa kamid ah salaada jumcada oo rabbigan tabaaraka wa tacaala aayada quraanka uu inagu amray marka loo aadaamo salaad maalinta jumcada la aadaamo salaada loo aadaamo طبعا واذانka dambe hadii masaajida qaar kood laba aadaan laga sameeyo aadaankii Uthman ee hore hadii laga sameeyo
aadaanka hore lagama wade waa aadaanka dambe ee imaamku mimbarka saaran yahay idaa nuudiya lis-salaati min yawmi al-jumu'a aadaankaasi hadduu dhaco fascaw ilaa dikri illaah u degdega ilaahay dikrigiisa xaggiisa aada oo masaajidka aada oo khudbada aada oo salaada aada beecana ka taga ganacsiga joojiya dukaamada xidha wadaru lbayc saas daraaddeed baa culimmadu waxay isku waafaqeen xilligaasi aadaanku dhacay ilaa inta salaada laga baxayo wixii beeca ee wax kala iibsiya ee dhacaayay inuu xaaraam yahay kadibna waxay isku khilaafeen beecu xaaraamba ha ahaadee ma asaxayaa mise ma asaxayo waraajix inuusan asaxayn ruuxa galayna inuu dembiile yahay khaasatan hadduu yahay dadkii khudbadu ku waajibtay iyo jumcada inuu yimaado wadaru lbayca beeca daayoo joojiyo ka soo taga dukaamada soo xidho khudbada imaada الله وحده تبارك وتعالى ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون هداد وحقرانيسان ساسا إذن خير بدنو إذن في عن صلاة مركا الله دميوت جمعة تكتان مركا كذب فانتشروا في الأرض دلك كباها أو دلك كوكلا فدا oo fadliga ilaahay raadsada oo kii ganacsanaya ha ganacsado kii beer falanaya ha fasho kii warshad ka xamaalaya ha ka xamaasho ilaahay risqiisa iyo fadligiisa raadsada salaada kadib ilaahayna markaas kadib xaaladaha markaad ku sugantihiin aad u xusa si aad u liibaantaan kadibna rabbigeen tabaaraka wa tacaala qisa nabiga ku dhacday ba aayado ka soo degay oo isla ku saabsan jumcada iyo khudbadeeda baa meesha ku yimid oo waxay ahayd kama fi sahih al-bukhari nabiga sallallahu alayhi wasallam ayadoo isagoo khudba u taagan oo saxaabada u khudbaynaya ayaa waxa soo gashay safar ganacsi ah oo badeeco iyo xambaarsan oo maqnayd baa magaalada soo gashay turbaan iyo waxba la soo garaaci jiray shanqadii baa la maqlay hal mar baa masaajidkii laga yaacay nabiga waxa ku soo haray sallallahu alayhi wasallam 12 nin baa ku soo haray wixii kale waa laga kala tagay rabbi tabaaraka wa tacaala dacdadaasu marka aayadan ku tacliiqino waxa la leeyahay markay ganacsi iyo lahwi iyo maqlaan way ka didayaan oo way yaacayaan waxaad ku dhahdaan waxaad u yaacdeen ilaahay agtiisa waxa yaala ka fiican risqa rabbi baana waasica haka tagina way khudbada iyo khayrka adduunyaha uga cararina hadalkaas rabbi tabaaraka wa tacaala aayada marka ku khatimay macnaheedu waxa weeye maalinkan rabbi waxyaalaha uu ina siiyay inuu ugu deeqay waxa kamida salaadaasi jumcada la tukanayo iyo khudbada ka horeysiyo dhikriga iyo khayrka faraha badan oo wanaag aad u fara badan oo la koobi karin uu ku jiro nabigeena waxa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yiri dad way iska daynayaan jumcooyinka ay ka tagayaan way daynayaan hadday dayn waayaanna الله تبارك وتعالى قلوب تودا أيو حريا أو خير كحريا كدبنا وحي نقول دونان كوا موق ومحبب لسه النبأ خيرات كرم بالجا قفوليا حمان تيا شرق يا شياطين تنوى الله فريا أدونك هذا يصير كل عدنا ملحم ومركا وجهيست والضوي الشريك شكل مي وحكى النبي جينا كسوة صلى الله عليه وسلم إنه يرسدح جمع روحي كتجا يسقون عذر دار لهين waxaa lagu qoraa liiska munaafiqiinta saddex jumco oo aadan cudurdaar lahayn hadaad ka tagto kas uga tagto oo yaa cudurdaar leh sharcigu waxay cudurdaar siisay ruux musaafir ah oo socota ama mariid xanuunsanayo soo kici waayay ama haweenay iyada jumco laguma leh ama ilmo yaroon qalin kuba fuulin ama adoon la leeyahay sayidkiisu leeyahay oo mamluuk ah dadkaasaan jumcada lagu lahayn ama adoon inta midna ahayn cudurdaarna aan lahayn inaad jumcada ka tagtay waa halis ilaahay hadiyada iyo hibada uu bixiyay inaad fududaysato oo wax kale kaga mashquushay maya ahkaam badan bay markaa leedahay jumcadu aadaab badanna way leedahay dad badan oo soo dadaalo soo tukada marar far badan iyagoo khudbadii dhageystay oo salaadii tukaday baa hadana wax badan si ka yihiin oo dhici karta waxay sameeyeen ba inayna waxba ka helin oo dhici karta jumcadoodii inay duhur isu badasho limaada laana garashalaan
iyo mukhaalafaad iyo khaladaad uu galayo masaajidka dhexdiisa ayaa jira insha Allah ta'ala jumcooyinka inoo soo socda ayaa wixii Ilaahay naga waafajiyay kaga hadli doonaa maxaa loo baahan yahay salaada jumcada aadaabta iyo ahkaamta iyo waxa laga helo iyo sida looga helo باذن الله تبارك وتعالى صلوا وسلموا على خاتم الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين